lillahi u sheegtaan 2 kiilo dragiska halkee laga keenay baash dad islaamayna hargeysa waa ay soo galaysa maanta madaarkii ka digtaan kuuriye 2 kiilo dragiska iyo qaraxyada walxaha arrimahaasi halkee ka gataan wadeeg ma eg 2 kiilo dragisa iyo walxaha qarxa oo kaba maasa lagu talay kabaha imika xirantay kabaha laftooda dhaadheer ciribtaas laga geliyay kawra dheer oo maxay kawra dheer oo ku qaadi kartaa idinku ma eeg dambi ma lihidine cid idin soo dhibta cadeeya sheega madaxweynuhu arrintan muu ku shaqaleeyay cid idin soo dhibtay siyaasadda ku waalateen kowde iyo TikTok ku waalateen laba ma waalima meel fadhiisay draagada ma isticmaashay idin soo dhibay noo sheeg inta cadeey عدي قبسنا ما جرت والله قبسنا ما جرت قف والله عرّي دراجة أرنتي اللي قمت جوابك رواية ذاكت it's very complicated way أدنو ذاكت الدراجة جرتها وأنا شيء believe me or not دراجة أرنتي اللي قمت جوابك قف وأنا كتورة وعروي وأوي قف كوس أوي وحماش اللي قايب اللي قرنا يا دراجس قبل يوسعتي ألعبت أي تري كمان أوسيدي أنا كمان هو اللي يسوي ديبي أنا كمان واحد كتير ما أوجين أنا ما نعاس أي شيء تقبل maadaama tiri kabaha waxa ku jira maan ogeyn daraagada ma ogeyn waa la khiyaamay iska ooyday 2 saacadood leeyahay wuxuu baa leeyay sharciyan waxa xaq loo leeyahay in deportation lagu sameeyo qofkaas dib loo celiyo wixiina laga reebo wixii markaas walxiyo wixii waa la baarayaa hadii de garansay walxa waliba elementiga la sheegayo by chemically waxay noqon kartaa walxa loo isticmaalo explosionka ama explosiveka walxa ma yahay walxa qarxiyada waaweyn ma yahay لكن هو الحد دلي كرا لبقف صدق قف ملاحظ إلا 5 قف وهو الحد دلي كرا إلا 8 أريا 8 نفو جيله وهو الحام مقرانسا إكسبلوسيف في الله استعماله believe me or not marka waxa weeye walxaan noocaas gabadhu sido Soomaali way yaabtay maanta marka warkan aan sheegayo qof walba ay yaabaya gabadha marka misqarxinaysay gabadhan la leeyahay waa laga xanaaqay maxaa Muqdisho lagu soo celiyay baa leeyahay marka ma inay isqarxisay bay rabteen marka gabadhu inay isqarxisay ma rabteen ودنا حنا قسم دلانتين بي ولا سوء علنا ولا سوء علنا إلا صقر عيو لبه هدي قبل ده نكون سوء علنا يضل نبضة كوك يعني محيته وح محله سوء علنا ماشي ماله سوق رحنا مركب قرح الداية ولا اللي تسمع قرح الداية والنوع عصوي believe me or not وصاص وي حوجها طبعا يمكن هي إنجليزية أرمها إنجليزية سي شاشة القراع وي أن قبل ده أرنت النعيمة قرنا وحير دروس تاجيه أرنت النعيمة قرنة يجبردا حجد ملي هرتنيو رير كان جبردا نكذا لاتي وحي هاين رير كده ما أنتو عاين نعيمة قرنة ميديا وفدي رجع يدمر ميديا وفديين ده رير كده قنصنا نبضنا نجيب دحين ورت رير كأنك أنا جاي مكذي شيء أنا جو رير كان جبردا صاعي تاي وإحنا نبضنا نجد دحين يوح وناتشينو لس وناتشيء ده ما بيجربه ما فهمت ده قال كده واحد دايستين annaguna ma aan dagaal ku celino ama daroogada lagu qabtay arimahaas de sharciga wadanka ka hor imanaya ha noqoto ama migraansaasi kale meel kale gacanta shariictoonaad laga toogto ama ha lagu qabsado in ay de team ku jirto habbiqlis group inay saaxiib la tahay naaska dhakada weynli waxa soo dhan ha lagu qabto ikadi ma siyaasiga ugu daran Ismaaciil ma soo qabanay xog badan waa haya irkaadi hal qof baan soo qabanay شاشة قراعتين كلا سمعت شنو؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لباتي بورتادي أدبر دي السلامي أدبر خير مولد أدنا أدبر كو السلامي نادر وركاغن واليوم سلطان مولد مركي دويد البرتن شغلي وادي شقات كتير تمام ما وادي نجح حلاي أنت يوردن تلفون بنالو كتير واقرت واحد بدن أو السومالي دوغين يركادي هلا رفضنا سوق بنايا نيو واي كتير جاهز كلونيو قفنا سوق بنايا يكادي هي شاشة دينتنا كلا قراع صح waxaan soo ogaaday anigu arintu inay arin diineed ku shaqo leedahay adduunkana ay ku noolay group baa xukuma oo siday doonaan ka yeelaa waa gartay qolada la yidhaha ammaaniyadda ma kuwan shaydaanka caabudo sida kolba loo yaqaanaba ayay inantani xidhiidh la leedahay la shaqaysaa waxaa tiri iyo la shaqaysaa al-shabaab waan idin siinayaa al-shabaab la shaqaysaa may ammaaniyadda miyaa la yidhaha mise qoladan shaydaanka caabuda
maansooniyadda maasoniyadda qolada maasoniyadda saatira ها waa ها gartay haye ها waa inaad gartay de kolley dhammaantiin caalamka waad la socotaanoo barkiinba de waxay wada joogaanba waddamada reer galbeedka hore maray aad iyo aad qof kastoo caan noqdaba qoladaas waxay isku daydaa inay conducti la samayso xidhiidh oy dhaqaalo badan ku fangarayso si uu u faafiyo oo ay caannimadiisa uga faa'iidaystaan uu u faafiyo waxaanay aaminsan yihiin inaad daawateen iyo inaad aragteen kala garan maayo kusii soco ismaaciil inantan iyadoo muqdisho joogta waxay samaysay action ay faraha ku tilmaamayso ammaaniyaddu waxay tahay maansooniyaddu waxay tahay ishan cawaran ee shaydaanku leeyey ayay faraheeda ku tilmaanta oy ku samaynaysay qof kastoo caanoo adduunyada korkeeda jooga ama fanaan ha noqdo ama tiktokar ha noqdo ama aalad kaleba ha isticmaalo ummad badan ku xidhantay qoladaasu sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayay conductigula sameeyaan macdalla waa qof soomaaliya oo iska durufaysan oo geeska africa iska jooga oo dhaqaale xuma hayso oo dowlad xuma hayso inantan iyo qolooyin badan oo kaleo social media isticmaalo magac ku leh waxay u shaqeeyaan qoladaa la ydhaha maansooniyadda mishinka ee hargeysa u imanaysana mu ahayn dalxiis iyo tourism mu ahayn ee wuxuu ahaa un inay gudbiso afkaartay qoladaa kula heshiisay inay u gudbiso dhallinyarta reer hargeysa meesha waxaa jooga dad waxbartay oo brofesora leh oo culummo leh oo shuyuukh leh oo nooc walba leh ayaa joogaan qof kastoo social media isticmaala oo qoladaa xidhiidh lana si yaroo fudud ayaa loola socdaa inantaa mismool wallaahi inaanan been idiin sheegin wallaahi wanigaa dhaartay nin weyn baanay been idiin sheegi maayo fiidowga haddaad dib u baadhaan waad helaysaan oo waad ka helaysaan aaladan aynu isticmaalno ama akoonkeeda haddaad tagtaan fiidowga waad ka helaysaan inantaas oo faraheeda ku tilmaamaysa calaamadda maansooniyaddu leeday calaamadda ay maansooniyaddu leeday iyadoo faraheeda ku tilmaamaysa akoonkeeda haddadan haddaad gashaan ood baadhaan wallahi waad ka soo helaysaan oo billahi waad ka soo helaysaan haddaan kelmad beena ku daray ilaahay carabka hayqalo nin weyn baane markaa niyo molidow sababta loo soo celiyey ma aha hargeysay cayday ama calan bay cayday ama calan bay wax ka sheegtay ama somaliland bay wax ka sheegtay ama arrin qabiil ama arrin siyaasadeed intaa midna shaqo kuma laha arrintu waxay shaqo ku leedahay diin bay shaqo ku leedahay gabadhani waxay faafinaysay diinta maansooniyadda la yidhaahda shaydaanka lagu caabudo ayay faafinaysay muqdishona mashruuca way ku haysaa iminkana waxay doonaysay hargeysa inay la timaado waxaan uga digaynaa oon u faraynaa jaarkaanu leenahay reer puntland war dhalinyartiina ayaan la soo gelin xanuun sillan waayo waxaan maqlayaa caawiyadoo le beri puntland baanu socdaa dad badan oo iska jibbaysnaa oo iska ficil qaaday oo iska muraaqoonay iska muxuboonaya baan arkayo welcome taa guraya baan arkay war nin weyn baanay wax iga dhagaysta war dhalinyartaa soo kacaysa ee dowlad xumadu hayso ee dhaqaale xumadu hayso ee waxaan kula duu eebba kuu rooyey faqrigu googooyey iyo dagaaladii iyo qabaa'ilku intaasoo sanna googoynayay war si yaroo fudud baa lagu duubsanaya soomaaliya si yaroo fudud oo easya ayaa khadka looga saaraya inantanna allaha soo hadeeyey waxay ka mid tahay culummada nooca la maansooniyadda dhaqaalay ku qaadataa xitaa taageerayaasheeda haddii aad baadho wasumu billahi inaanan been idiin sheegin waxaad ka soo helaysaan waxayna fahmin baad ka soo helaysaan war akoodkeeda iminka wadagala haddaad been moodaysaan fiidowga ay calaamadda maansooniyadda faraheeda ku tilmaamaysa haddaad ka weydaan waxa aan sheegayo o dhan waa been wey marka inanta intaasaa lagu soo celiyey waxay u shaqaysaa qolada la ydhaha maansooniyadda ayay u shaqaysaa kuwa shaydaanka caabuda khaniisiinta taageera waxaasay u shaqaysaa dhaqaalena way ku qaadataa waan ka baxay aadna waan idin wada salaamaya waay ismaaciil waxaan rabnaa laba su-aalood inaan ku weydiino arrinta draagiska horta wararkaniyo warkan iminka ugu dambeeyaad sheegayso gabadhaasi waa run meelo badan iyadoo faraha saa kale waa la arkay laakiin anugu maan fiirsanoo ismaan lahaynba maansooniyadda aaminsan tahay haddii arrimaha draagiska ama arrimahan kale la sheegayo ay run noqdaan ama arrinta maansooniyaddu ay dee noqoto maadaama adigu aad noo soo xaqiijisay aan aaminsannahay dee arrintaa lafteedu inay wax badan ka jireeyaan 70% iyo 80% ay noqon karaan maadaama ay arrimo diimeed ku shaqo leedahay maxaa loo soo fasaxay ee sharciga loo waafajin waayey ilaa maansooniyadda 5 sano xariga ayaa magaranayay xeerku qoraya wixii
diinta iyo dalkaba ka soo horjeeda qofkuna hadduu arrimahaas uu isagoo faafinaya lagu qabto waa dembiili dembigii qofka galay in la sii daayo oo dib loo soo celiy ma yahay waa su-aal wanaagsan sidaad mawlidoo subdan la socoto waxaynu qaadannay nidaamka la ydhaha dimuqraadiga nidaamkaas oo laga soo maanguuriyey waddamada reer galbeedka aad iyo aad marka waddan yar oon la ictiraafsanayn oo caalamka ictiraaf ka doonaya ayaynu nahay marka waxaynu iswaafajinaynaa dhaqankeenna iyo diinteenna iyo dimuqraadiyadan aynu qaadannay aynu iswaafajinaynaa haddii la xidhi laa maanta inantaas oo jeerka loo dhaadhicin laa waxa kicilaa mucaarid aad u fara badan dalalkan dayna siiyaa inaga kaba dhaqaalaha ama sweden ha noqoto amba UK ha noqoto amba denmark ha noqoto amba norway ha noqoto waddamada reer galbeedka sanadkii dee shilimaadka yar inoo soo tuuroo dhan waxaasoo dhan baynugu kicilaa ictiraafkan iyo waxaynaynu raadinaynaana hog madow buu ku sii dhicilaa marka dowladdu